odayaalkeenan dhamaaday midda kale waxaan rabay lahaa inaan nimankan shabaabka la yiraahdo inaan baaq u tiro oon iraahdo war niman yahow wadankii meel xun buu ku socdaa adinkuna waxaad ku wadaan dagaal duldhabo babta dhabarkaad ka garaacaysaa garanaysaa dhaqaaley baad baabi'inaysaan dadkii maaragtay dukaamadii wixii oo dhan baad baabi'inaysaan biriijaalkii baad jabinaysaan nimankii la rabay inay wadankan daafacaan adinka wey ma aragteen waxa idinka shisheeye ma fiiriseen oo ajnabiga u soo dhigtay oo yaad xukumaysaa haddaad berri wax qabsatid oo dalka aad qabsatid maya abjani waxaan idinkula talinayaa anigu awowgiina waa noqon karaa adeerkiina waa noqon karaa sii jeesta war sii jeesta intaa ku soo jeesanini xagga u jeesta oo dhabarkana xijiya nimanka halkaas wareerku ka socdaa halkaas aan u wada jeesano oo saaxiibadina yaryarka oo halkaana halaynina ama askar ha ku jireen ama ganacsadaha aadeen adinkoo lamaysan oo la wada midaysan yahay hal la sii jeesto wadanka hala daafaco wadanku meel xiloo marayaa saasan shabaabka war maandhooyow ilaahay baan idinku dhashay nimankii meesha 14 October soobe meeshiisa 800 ku dilay hal galab 800 oo wax walba leh ma garanaysaa dad badan ku ogaantoobeen oo dad badan oo ku rajoobeen hooyooyinkii dadka wax gaday oo dad badan oo ay maaragtay ku gablameen ragood oo intaas marka la isku daro qoftiiba 10,000 waa ku noorayd 8,000 oo qof ayaad waxaad ka dhigteen waxaan jirin ayaad ka dhigtay hal galab dhowr saacadood ninkii taas soo diray oo muxuu sheegay yow dunia aakhira maxaa ninkaas war waxaasoo kale wax lagu hadla maahe haddii maaragtay khilaaf oo diini iyo waxyaalahaas uu jiro iyo tartiib aan usal warnimada aan sii jeesano war sii jeesta war maandhooyo sii jeesta oo wadanka daafac